murtimaal oo ah ninka arinkani uu ka calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waadi wada salaamay saaxiibayaal meel kasta dunida daafeeda ka joogtaan waa walaalkiin Hilaa Sool oo idin leh sidii hore iyo calool adeeg dhammaan waxaan idin rajeynayaa meel kasta dunida daafeeda ku joogtaan ama aad joogtaanba amni iyo amaano inaad ku haysataan haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqato channelkan Hilaa Sool inaad channelka subscribe tiraahdo isla markaana like taad saarto gambaleelkana aad u furato sidii aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaalada aanu bartan soo galino waxaan rabaa inaan wax yar ka iraahdo arinka Fahiima iyo Murtimaal runtii waa arin aan ka aamusi waayay in badan social media maalmahan ku arkayay waxaan ila qurux badnaatay in aan ka hadlo hadalkayga marka waxaan u qaybinayaa oo soo koobaya saddex qodob qodobka koowaad oo aan kaga hadli doono akhlaaqda waxa ay diinta islaamka qabto qodobka labaad oo aan la hadli doono qof walba oo Soomaali ah oo social media ha nooc doonaba ahaado Facebook ahaado TikTok ahaado YouTube ahaado wax ku soo upload gareeya iyo qodobka saddexaad oo aan si gooniya ula hadli doono lixda qof ay gadaasheeda ka aragtaan oo runtii aad wada taqaanaan qodobka koowaad aan u soo laabto horta shariicada islaamka waxa loo qaybiyaa saddexda loo qaybiyo waxay tahay mid waa cibaadaad waa takoobaad sida salaada la tukanayo soomka la soomayo sakada la bixinayo wixii lamid ah talabaadna waa aqaa'id waa tasawiraatul qalbi inuu Allah weyna subhanahu wa ta'ala uu kaligi yahay quraanku uu yahay kalaamullah nabiyullaahi maxamed salawaatullaahi wa salaamu alayhi ku salli nabiga waxa ugu bakhilsan qof nabiga lagu soo hadal qaaday oo aan isla markaana ku saliyin inuu yahay khaatimul anbiyaa tasaddexaad oo ah akhlaaqduna waa dabeecadda qofka muslimka ah ee dhabta ah hadaba insaanka waxa uu leeyahay laba shakhsiyadood oo kala ah الشخصية الظاهرة هي الشخصية الباطنة الشخصية الظاهرة وقفك الطبيعات سمك بنانك مرة أو مريو أما أقون لها وما لها كموقتة من نوع الشخصية الباطنة وواحد كو غير تاكليه قفك مركو مع عملات الله سميسو أما الحرير لا سميسو مركة نقصيسة والشخصية الباطنة مركة شريعة إنه الشخصية الباطنة أي وحي يوصي كلا قاعدة صدح قيبود أي وحي كليهين صدح قيمود أيه وسي كلا قاطع صدح قيمود وحي كليهين بدل المعروف كف الأداء إيه احتمال الأداء بدل المعروف وحوي إن آد بني آدم أما السنكونافلة إذ الكيمة أما قف كستو آدم حرير إذن كاقاريا أما إذن إحمريا ونقضاه مدوى ناكسن طلباتو أنا كو شيغنينا كف الأداء وإن آد كهيستا عن شرفة هذا dhibtaada adin iyo afba dadka kale oo wax dhiba aysan ka gaarin tasaddexaadna waa ihtimaalul adaa oo ah hadaa dadka dhibkaaga ka haysato waxa jiri doonta dadka aad dhibka ka haysatay qayb kamida oo kuula iman doonta adiyad oo kuula iman doonta cilaaq oo kuula iman doonta kardarro hadaba ma ka fal celinaysa mise waad u adkaysanaysaa akhlaaqda dhabta ah ee qofka muslimka ah hadaba waa adkaysiga sababta akhlaaqda u soo qaatayna waxay tahay Fahiima waa ay ka soo falcelisay video ay leedahay oo aysan asturnayn runtii waxay uga soo falcelisay qaab aad u qurux badan oo qaababkan akhlaaqiyaadka aanu sheegnay waafaqsan aad bayna u mahadsan tahay ilaahayna waxaan leeyahay subhanahu wa ta'ala ajri iyo xasanaadka kaasiyo mid kale Fahiima waxaan farayaa qofka uu alla jecel yahay ayuu dhibaa dhib walba oo lagu geysto Fahiimay ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu kuugu qorayaa xasanaad anbiyadii oo basharka ugu khayrka badnaa ayaa la dhibi jiray marka halka waxa kaaga cad qof walba qofka uu ilaahay uga dhow yahay inta la dhibayana inay ka badan tahay qodobkayga labaad aan u soo laabto oo ah qof walba oo fiidiyogan soo gaaro oo isla markaana social media ku soo upload gareeya wax codsigaas waxaan ka codsanayaa horta koowaad inay fiidiyogan si share gareeyaan talabaad aan dadka ka codsanaya waxay tahay ama daawadaba upload gareen maaha ama daawadaba ama social media ku xiran qof walbo haya Fahiima video ay leedahay ama haya gabar kale oo Soomaaliyeed ama muslim ahba
cawradeeda ama ceebteeda haya in uu dhaliid yiraahdo oo iska tirtiro ama meel ha ku upload gareeyo ama cid kale ha la share gareeyo ama foonkiisa ama telefonkiisa ha ku jirtee in uu raadiyo oo isla markaana tirtiro maxaa yeelay adigu maadan jeclaateen maanta hadii aad tahay qof haysta qof walaashiya muslim ceebtiisa ama jecel inuu faafiyo ama dadka la wadaaga adigu maadan jeclaateen in walaasha qaabka loola wadaago inta kula dhalatay ama aad qabto ceebaheeda saa loo faafiyo marka in qof walba uu soo gaaro clipkan waxaan ka codsanayaa inay ka hortagaan biidmillah ilaahayna waxaan wada weydiisanaynaa dhamaanteen inuu noo aqbalo ducada nabigeena salawaatullaahi wasalaamu alayh oo maalin walba ku ducaysan jiray oo ahayd allahumma ya muqallib alqulub thabbit qalbaka allahumma ya muqallib alqulub thabbit qulubana ala daacatik aan soo noqdo 6 qof halkan ay idin kaga muuqda mid waa Daahir Cali Sow oo aad wada taqaanaan iyo Shiina Culay iyo ninka la yiraahdo Maxamed Buskud iyo ninka la yiraahdo Kayse iyo ninka la yiraahdo Murtimaal oo ah ninka arinkan uu ka soo bilowday ama fiidiyogan duubay soo doonaba horta Murtimaal ha uu duubo fiidiyogan inkastoo uu yiri markuu jawaab ka bixinayay fiidiyogan muddo ka hor riwaayad baanu sameeynay horta shaxum ay kugu tahay qof marwadiisa ama xaaskiisa oo aan asturnayn baraha bulshada soo gelinaya ama ceebaheeda faafinaya waa calaamadaha lagu garto qofka diyuuska la yiraahdo maxaa yeelay Soomaalidu waa isticmaashaa kelmadda diyuus aqoonna uma leh diyuus macnaheedu waxa weeye qof walba oo raali uga noqda haweeneydiisa ama qof dumar oo mas'uul ka yahay ama hadal ama si kala oo mas'uul ha uga noqdee iyadoo xumaan ku jirta uu raali uga noqdo ama uu isagu xumaanta uu horseedo ama base qof walaashi ah oo muslim ah ceebaheeda uu faafiyo maxaa yeelay dadka hadday muslim yihiin waa walaalo ilaahay baa quraankiisa ku sheegay oo leh innamal mu'minuuna ikhwa waxaad kala ogaataan ta kula dhalata kaliya inaysan walaasha ahayn ee qof kasta oo muslim ah ama ha kula dhalata ama aysan kula dhalan in ay walaasha tahay waajibna ay ka saaran tahay in aad ceebteeda asturto maxaa yeelay waxaan maanta dunida ay ku noolnahay ama aanu ku dhaqannahay ama aan dunidan ku joogno runtii waa haween maalinkaad calool gasho ta ku koolkoolinaysa waa hooyo oo waa haween maalinkaas oo hana qaado ta uska gaaga meeraysa ee cunada ku karinaysa waa gabadh oo waa walaasha maalintaad guursato ka daryeelaysa oo rag kale ka qurxinaysa oo horumarka ka shaqeynaysa waa xaaskaaga oo waa haween maalintaad tabar dareyso oo aad idaal dareyso waxa ku garab qabanaya oo ku dhinac istaagsan oo agtaada mar walba ka muuqanaya waa gabadh aad dhashay ama waa qof dumar ah waa inta badan majority Murtimaal waxaan ku leeyahay si gooni aan adiga kula hadlaya laakiin 4 nin waan isku qaadayaa 5 nin kale waan isku qaadayaa si gooni aan adiga kula hadlaya gabadha fiidiyoyada aad ka duubtay wixii gacantaada maanta ku jira delete wixii aad cid la share garaysayna ee oo aad ka daba tagi kartana in aad ka daba tagto aad ka daba tagto muhiimaduna waxa weeye labada qof wanaaga ay marka hore isku guursadaan isla wanaaga inay ku kala tagaan kuna wada joogaan shantan inay kale xabaala faga shantan inay kale iga dambeeya magacyadooda hore u sheegay runtii waa xabaala fag weeye arinkani waa arin mar hore soo dhamaaday waa arin 2 sano ku dhawaad ay ka soo wareegtay bulshada waxay uga dhigayaan fiidiyogan ay wareejinayaan fiidiyo cusub inuu yahay oo Murtimaal hadda soo duubay haddaba mid ogaada fiidiyogan fiidiyo cusub maaha waa muddo ka hor weeye fiidiyogan waa 2000 meelaha 2020 meelaha ilaa 2001 bilowgiisii fiidiyoganna haba baxma xuma balse waqtigiisi waa la soo dhaafay ragii aanu maanta islahayn social media waxyaabo fara badan baa laga dayanayaa waxay ku sifooween sifa xun ayay ku sifooween waxay noqdeen runtii rag maanta views
ama lacag ka sameeya ama ka raadiya cawrada dumarka mid aan soo qaadan fiidooga fahiimo ma jirto inta sawiradooda ay idiin wada muuqato fiidoogii gabadhii oo aan asturnayn bay halkan soo dhigeen iyaga oo waliba waxaaba nasiib xumo waa la siiyaaba oo maskaxdeedu qaadan weyday waxay iska dhigayaan qof gabadhii u heelinaya laakiin se u heelin maayaan waxay leeyihiin intii fiidoogan aan arkinay hadda arka oo gabadha ceebteeda ayay sii faafinayaan ogaada mid ogaada rasuulkeena wuxuu noo sheegay salawaatullaahi wasalaamuhu calayh man satara muslima caybahu sataraahu fi dunya waalaakhira qof muslima caybihiisa astura ilaahay subxaanahu watacaala addunya aakhiraba waa uu ku asturayaa balse kan aan asturi waaya qof muslima ceebtiisa gabadh ha ahaato ama wiil ha ahaato amaba ka shaqeeya oo ku mashquula dadaha kale ceebaha ay leeyihiin saxarba ha la ekaatee isna aysan u muuqan takarta saaran ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ballan ku qaaday inuu gurigiisa ceeb kaga saari doono waxaa magacaabi maayo dadkan aad aragtaana gadaasheeda ka muuqda waxay caadaysteen inay dumarka aflagaadeeyaan waxay caadaysteen inay dumarka social media ku jiraan fiidooyo ay soo dhigaan oo aysan asturnayn intay soo qaataan bulshada inteedii kale aan ogeyn ay la wadaagaan iyaga oo iska dhigaya in ay baraarujinayaan inahay baraarujinay ama ay xumaan ka reebayaan mithaal soo qaado CK oo kale maalmo dhaweyd gabar bulshada caanka ah baraha bulshada ayuu soo qaatay wuxuuna iska dhigay una hadlayay sidii qof waaninaya oo kale haddaba CK waxaan ku leeyahay maadan waaninayn waxaad lahayd intii aan fiidooga arkinay arka oo gabadha ceebaheeda ayaad sii faafinaysay taasna waa wax laga qurux badan yahay weligaana guri ku dhagaan maysid runta markaan ka hadlo waxaa ii soo haray ninka la yidhahda Shiino Culey hadna waxaan ku leeyahay fiidoogan aad soo qaadato horta dhiliid fahma ay leedahay runtii dadkana waxaad iskaga dhigaysaa ama bulshada waxaad iskaga dhigaysay qof fahiimo garab siinaya balse qaybo jirkeeda kamid ah ayaa tilmaamaysay dadkana farta ugu fiiqaysay isagoo oo fiidoogii meesha uu ku saaran yahay ilaa waxaad ku soo halqabsanaysay lugahaaga baad ku soo halqabsanaysay oo waxaad sii raacinaysay murtimaalo miyaanu naqaanay adaana tusay war xisho nin weyn baa tahay waxaan waa wax ku duumaya waa wax taariikhda ku galaya ogow caruurtaadu waxaan markay arkaan inaysan asaagood la kaftami doonin xaqiiq baan kala hadlayaa Shiinow fiidooga dhilay ninka daayira calaw soo la yiraahdana sidoo kale horta waa uu ku mahadsan yahay daahir ninka libintiisa waa loo qiraa waa uu ku mahadsan yahay fahiimo horta garab hore waa uu siiyay haddana codsigeedu waa uu ka aqbalay ee ahayd fiidooyada dhiliyada midda kale aan idinka ilaahay waxa weeye shantiinaba waxay idinka codsatay fiimo fiidoogeeda qofkii daawaday uu arkay in ay fiidoogeeda ay ka saaraan daahir waa uu saaray fiidoogii waana uu dhaliiday laakiin se daahir haddaan taa kaaga mahad celiyey weli anigu waan kugu dheganahay xaqiiq markaan ka hadlo raganimana kuu qiri maayo ilaa aan arko daahir oo dumarka Soomaaliyeed garabkooda ah oo dumarka Soomaaliyeed u wada heelinaya oo hadday soo aflagaadeeyeen haddaan u jawaabayn oo nin ragoo asaagiisa la ficiltamaya oo la kaftamaya oo libin u sheeganaya oo la googoosanaya markaasaan daahir aanu raganimadaada qiri doonaa balse tan hadda maanta samaysay waa aad ku mahadsan tahay midda kale ogaada lixdiina nin ee gadaasheeda ka muuqda dumarku ragga ka mas'uula oo ilaahay wuxuu ku yiri fi suuratu al-baqara ar-rijaalu qawwaamuuna 'ala an-nisaa dumarkana qabiil ma leh ragga maanta qabiil ku caayayow sida kayso kale waa ku soo laabanaya kaysi dumarka horta qabiil ma leh sababtaysan qabiil ku lahayna waan idin sheegayaa horta rag baa ka mas'uula dumarka ama hal qaba ama hooyaha noqoto ama inanba ha noqotee waa marka ugu horeysay waa marka inanta tahay waalidkeed baa ka mas'uula waa hadday nool yihiin waa marka xigtay waa markii ooriyada noqoto oo la guursado
saygeeda ka mas-uula oo wixii aan qorgoon ahayn ay geysato lala xiriiraya wixii loo geystana ka xaaltamaya waa markay gabowdo hadduu saygeedu nool yahay ama nool yahay haddii kalena caruurteeda ka mas-uula wiilasha ay dhashay markaa qabiilka ay leedahay muxuu yahay qabiil male markaa dumarkaa laga xishoodo midda kale kaysoodna waxaan ku leeyahay in badan waan ku arkay nin in adeerkayaa tahay weliba ii dhow ina jaamaco balse kaaga xishoon maayo xaqa oo alla wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala in allaha laa yastaxyi min alxaq in allaha laa yastaxyi min alxaq qabiil ku difaaci maysid anagana nagu difaaci maysid inaad gabdha caydo kaysow inaad gabdha caydo anagana nagu difaaci maysid inaad qabiil kale gabdhahooda caydana nagu difaaci maysid run baan kuu sheegayaa qabiil la caayana raganimo maaha sumadaanu lahaynna ma aha soomaalida sumad kale si gooni aan ku canaananaya adiga soomaalidu sumad kale aysan lahayn baanu lahayn balse sumadaada ku ciyaaray waa nin darwiisha lama hayo oo dumar aflagaadeeya war aanu qabno hadday doonto cadowgayga hala dhalato waanu garab istaagnaa waanu u hiilinaa waanu u hiilinaa rag badan oo adiga kula midana waa ay jiraan rag adiga badan oo adiga kula mid ah oo qabiil dartii ragga dumarka u soo qaata u caaya weliba kuwoodii dhintay qaar soo qaatana waa ay jiraan marka kayso waxaan ku leeyahay nin ragaa tahay kartiya xineeyahina waad leedahay waa ku aqaanaa waa kugu ogaa balse isma lahayn maanta kaysaa dumar caayaya isma lahayn maanta kaysaa qabiil isagoo le difaac dumar caydii ku difaacaya kayso waxaan jooji waxaan jooji qabiil looma caayo dumar qabiilna laguma difaaca cay dumar qabiilna laguma difaaco cay dumar dumarna cay male dumarna cay male anagana cay nagu difaaci maysid iyo dumar aad aflagaadaysa nagu difaaci maysid haddaad nin raga isqabataan waa kugu jiraan xiniyo ragnimadeydina waad leedahay waadna iska dhicin kartaa waadna iskaga filan tahay haddii lasoo labeeyana anaa kugu labeynaya adiga oo ku garab istaagaya balse maalintaa qof dumara soo caydo ama aada usoo fadhiista social media ogow ninka ugu horeeyay kaa soo horjeeda inaan ahay dhammaan waxaan idinka wada codsanayaa mar labaad ha ku sifoobina calaamada dayuus xumaantana aa faafinaysaan gabdhaha cawradooda astura intii haysana biidmi illah wabiraxmati waxaan rajeynayaa inaad tirtiri doontaan haddii aad channelka subscribe ka ilowdina subscribe dhah leegtana saara isla markaana gambaleelka furta sidaa iyo nabadgeliyo